بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وانظم تح الشعر شعر كتح ولازم مذهبي أنيق مذهب كيغانا لازم ومذهب كشيخ محوءها وولكي سودر دارميو مذهب كيغو وحاوية في اطراح الرفض العطايا في ترك العطايا وي سيسمدا إيا الديق مركات قبيضه ood gabaygii cid un ku ammaanto in wax lagugu siiyo abaalgud iyo abaalmarin in lagu siiyo aniga intaa laga taga weeye madhabkayga laazim guud ahaanna xaqa ugu adeeg gabayga ee baatil iyo bardoodan iyo waxaas ha ugu adeegin fadunya adduunyadii aqallu mid yar weeyo ka yar in gabay wanaagsan iyo xigmad iyo murti adduunyo iyo xoolo iyo lucaaca inay abaalkeedu inuu noqdo waxa weeye arrinkaasi waa adduunyo saas waa ka yar tahay hadalku marka gabay lagu sheego ninka abwaanka dadka waa ka qiimo badan yahay sida uu wax u cabirayana waa ma sha Allah alam tar annahum fi kulli wadin yahimun hadalka meeshiisa ugu tagayaan marka hadalku waa tix iyo tiraab weeye inaad gabaydo ood gabayga isku daydo waxa weeye wanaag weeye markaas ولازم مذهبي أنيق مذهب كيغا لازم مذهب كي سوا مع في اطراح الرفض وحوغي للف كإنات كتكت الدنيا دن إيا العقل لغوصي إيو شهادة يرو لغوصي إيو قبايقا كفقوا ولقاي الله فالدنيا أقل الدنيا دن تاوى كيرته فهو قبايقو عنوان وأستان أما وشعار على فضل إيا الضدن ماذا أيو أستان ويهي أخيار نماذا أيو أستان ويهي وما أحسن الشعر شعر كما كوناكسن إذا لم يبتذل هدي آنا لدليسنين هدان لإهانيسنين وآنا ميل حن لدقين والله قبياون انت اللي يرى هذا آن قبيقا ميل حن لدقين قبي محا كوناكسن وصيدا ميل حن لدقين يواسده إناد غير اسكو ليسو إناد جنسي إيو دمركا تشيركودي إيو آد كهدشو inaad durbaan iyo dabalulid iyo digdig iyo meelaka laaqin iyo muusig iyo balaayo iyo caruurta inaad fidnayso way sida way marka gabaygu uu dhintay laakiin gabayga iyo murtida iyo wanaaga oo la cabiro waa gabay wanaagsan way gabaygaasi aad buu u wanaagsan yahay wax leeli karana ma aha fa huwa gabaygi cinwaanun wa astaan wa shi'aar ala fadligi dadnimadii dun wanaagii buu astaan u yahay fasaaxadii buu astaan u yahay aftahanimadii buu astaan u yahay aqligii buu astaan u yahay hal ku dhaga oo la muujiyo ayuu astaan u yahay wama ahsana ash-shi'ra gabayga maxaa ka wanaagsan idha lam yubtadal hadii aan gabayga lagu dheelin hadaan lagu ciyaarin idha lam yubtadal hadii aan gabayga la ihaanaysanin way بيتك لباتنية سقالات مات أهل الفضل دادك أهل الفضل أهوي دينتين لم يبقى كمانا هارين سوى مغرف مد دم بدحم خورسا أما فراها كولتشيرو أو أما سمن على الأصل مد أسل كيسي هوري اتكال تلسارتي وأركتي حوغي نيتشبو كموغض يتشاؤم وإلا فضلك إيا خيرك إيا حقا iyo wanaaga adduunyo kama dhamaado wuu yaraadaa wuu shiiqaa laakiin adduunyadu khayr kama dhamaado xaqu adduunyada kama zuulo adduunyada nabiga sida cadeeyay sallallahu alayhi wasallam laakiin abwaanadu waxay sida ugu celcelinayaan dadkay tirtirsiinayaan war raggii hore ku dayda war dadkii hore ku dayda war sidii cilmiga hankii loo hayay oo kala yeela sidaasaa loogu soo celcelinaya rag waa raggii hore hadalna waa intuu yiri Soomaali maysan dhihi jirin مات أهل الفضل ددك أهل الفضل هوا دنتين لم يبقى كمان هارن سوى مغرف مد دنح أو دنبي أنكو دحجرة دنبي دبعك دكتي سوى مغرف مركا مد دنبي كو دحجرة أما دنبي قعمها كل جرة لا بضا وتكون لك بين كرتها سوى مغرف مد دنبي قعمها كل جرة أما مد دنبي كو دحجرة أو أما سمن على الأصل مد أسل كيسي اتكلا تلاسارتي qoliyo wadaadahan ka soo jeedaa iyo dad culimo aan nahay iyo aabahay baa sida ahaa iyo qabiil hebel baan ka dhashay iyo haliyay hebel baa dhalay iyo generaal hebel baa dhalay iyo madaxweynihii saas ay dhalay iyo waxaas oo dhan waxa weeye
wax loo baahan yahay ma aha. waatay Soomaalidu dhihi jirtay aabbahay baa geel lahaa anaa dameer lahaa dhaanta, maxaa yeelay haddee wuxuu aabbahaa lahaa xilligiisii bay ahayd, adna xilligana lagu baahan yahay. lama diidana inaad dadkaada iyo aabbaha iyo reerkiina aad fadliga aad oga dayato iyo wanaagga. watabactu millata aabaa'ii, taas lama diidana. yaa ukhta haaruuna maa kaana abuuki imra'a saw'in wamaa kaanat ummuki bagiya. wixii dadkaadu ay ku ammaanan yihiin adna aad ku ammaanan tahay waad sheegan kartaa iyadoon faanay ka ahayn, laakiin waxaa la diidan yahay in adiguna aad fii waadin tahay, waxa aad ka hadlaysana fii waadin ukhraa inay tahay baa la diidan yahay. waa yahay beydka 30 wuxuu yidhi sheekhu calayhi raxmatu arxam arraaximiin: ana laa akhtaaru taqbiila yadin qaطcuha ajmalu min tilka alqubal. ana anugu laa akhtaaru dooran maayo taqbiila yadin gacan dhunkashadeed ama shuminteed, gacantaasoo qaطcuhaa goynteeda ajmalu ayba ka qurux badan tahay min tilka alqubal dhunkashada iyada ah. maxaa laga wadaa meeshan? madaxa qofka in laga dhunkado oo gacanta laga dhunkado oo kabaha loo qaado, arrinkaasi waa arrin dadka ahlu khayrka ah, alla ka cabsiga ku tilmaaman, warathatul anbiyaa ah, culummada rabbaaniyiinta ah ayaa arrinkaasi mudan. laakiin mid maaragtay qataar ah oo ummaddiiba laga yaabo xoolahooda inuu soo dhacay, meeshan uu joogaba laga yaaba laaluush inuu ku tegey, ummaddii dalkii iibsanaya, dal iyo dad iyo diin aan waxba shaqo ku lahayn, kaa intaad u tagto inaad maaragtay maamuusto ood gacanta ka dhunkanto adigoo xoogay shilmo ah ka doonayo, kaa gacantiisa dhunkashadeeda wuxuu leeyahay aniga waxaa igala qurux badan in la gooyo. ana laa akhtaaru dooran maayo taqbiila yadin gacan dhunkashadeed qaطcuhaa goynteeda ajmalu ay ka qurux badan tahay min tilka alqubal dhunkashada iyada ah. ayib beydka 31 wuxuu yidhi: in jazatnii, gacantaa iyada ah markaan u gabyoon ammaano hadday wax siiso, in jazatnii haddii ay abaal mariso, can madiixii ammaantii aan ammaanayna ay iga abaalmariso, sirtu fii riqihaa, addoonnimadeedii baan ku dhex sugnaanaya, addoon baan u noqonayaa oo af wax cuna xishoo weeye. haddii aan marka ninkan siyaasigaa ammaano oo aan qoraal iyo maqaal ku ammaano oon maantao dhan isna xoogay shilma ay siiyo, haddee nin hadhow dowladdiisii ma mucaaradi karo. war waaba adiga shalay ammaanaya maxaad maanta u mucaaradi wey? af wax cuna xishooba marka ku haysata. inaad xor noqoto ma dooni, mabda'aadi iyo naseexadaadi iyo taladaadi inaad xor ugu noqoto. nin siyaasi ah iyo nin wax haysta ka fogow, haddaad wax u sheegaysana si xor aad wax ugu sheegtay hadhow. in jazatnii hadday i abaalmariso can madiixii, aniga ammaantayda ay iga abaalmariso, sirtu waxaan noqonayaa marka fii riqihaa, inaan iyada addoon u ahay baan ku sugnaanayaa weye. ow amase laa, ima aysan abaalmarinin, waan gabyo nin weyn baan golihii baan soo istaago afkaan kala qaaday, ninkii baan ammaanay, markaasuu yidhi waa lagaa gabay, quruxsan yahay, orodoo iska tag, waxba kuuma haynee. fa yakfiini alkhajal, marka xishood iyo yaxyax iyo wejigabax iyaaba igu filanba. nin weyn oo intuu golo yimid afka kala taagay aan wixiisii waxba laga soo qaadin, iyada lafsadeedana waa arrin aad iyo aad u foolxun. beydka 32 acdabu lalfaadi, alfaad midda ugu macaan, lafdi wax lagu hadlaa la yidhahdaa, qowli aniga hadalkayga weeye, laka adiga aan ku idhaahdo khud qaado. wa amaru lafdi waxa ugu khadhaadh oon ugu necbahay, ila waxa qadhaar waa la necab yahay, laguma hadlee. nudqi aniga hadalkayga bilacal aan idhaahdo, bilacalla, haddii aan wax helaan wax ku siin, shirkaday wax iigu jiraan markaan wax faa'iide haddaan helo yaan ku siin, markay canshuurta iyo iskaadka ay sanadka wax iga soo noqdaan baan wax kuu soo diri doonaa, markaan mushaarka qaataan wax kuu soo diri doonaa. lacalladaasi ilaahayna kuguma addoonsanin, dadkan uma fiicno. dadka haddaad wax siinayso si akhyaarnimo leh oo gobannimo leh wax u bix, oo aan weliba daahitaan lahayn. masaajid baa lacag loo aruurinayaa, agoon baa wax loo aruurinayaa, waxbaa la samaynayaa, markiiba iska bix, u degdeg, khayrulbiri caajiluh, u degdeg weliba wax bixinta. hadhow shaydaan baa kuu sheekayn doona. marka qofka hadduu wax ku weydiisto, nebi maxamed ku dayo. weligii inta loo yimid oo nebi maxamed oo waxbaan kaaga baahan la yidhi sala allahu calayhi wasalam, maya ma dhihin. waa nin madax ah oo ay cid walba u imaanaysay, rag iyo dumar,
qaraabi iyo ma aratay qoys cid walba ay u imanayeen weeye cid walba oo dan sheeganayso dhan madaxweynihii ummadda oo intaasoo dowladood madax u ah oo aan weligii maya dhihin bal adigu meel gee marka nebi maxamed ku dayo oo haddii wax lagu weydiisto waxaad iska ilaalisaa ballanqaad iyo hadalka oo aad wax bixintiyood ku dhaawacdo meermeerin iyo dadka telefoonka inaad ka dansato waxbaad ballan qaaday waa lagu soo wacay inuu isaga yahay og tahay telefoonka ma qabanaysid sax ma aha qofka marka ama si fiican wax u sii ama haddii kale hadal wanaagsan ha kaa gaadho sidaasay akhyaarnimada ku jirtaa sidaasay gobonnimada ku jirtaa wayutcimuuna aطacaama calaa xubbih sidaasay ku jirtaa acdabu lalfaadi alfaad midda ugu macaan qowli aniga hadalkayga weeye laka adiga khud aan ku idhaahdo qaado wa amaru lafdi kan ugu kharaarna nutqi aniga hadalkayga weeye bilacal lacalla oo aad noogu badan aan ku dhawaaqay weeye haddii saas ay noqotaan wax ku siin bal igu soo noqo bal caynkaa yeel waxaa weeye beydka 33aad arrin la yaab luu isna oga hadlayaa waana naseexadii uu ibnulwardi wiilkiisa la talinayay baynu bartanka oga jirnaahe mulku kisra boqortooyadiisa canu isaga xaggiisa tuqnii way deeqi waxaa kaa deeqi ama tuqnii way deeqi kisratun xabad khubus ah xabadda khubuska gaajadii waad markaad adoo gaajaysan cunto gaajadii way kaa goyn haddaad casiir iyo hilib iyo xalwad iyo cunto kala duwan isku maaratay xaabisana dee gaajadii way kaa goy uun laakiin haddana waa dacqurmi oo jirkaadii bay wax u dhimi kan xabadda khubuska cunay adigana uu nin wax cunay iyo nin wax cunay dheh maxaad isdheertiin marka wa canilbaxri badweyntii xaggeedana ijtizaa'un bilwashal ijtizaa'un kaaftoon baa ahaaday aad ku kaaftoonto bilwashali washaaqada badweyntaa weyn ileen dhulkan aynu joognaba boqolkiiba 80 ku dhowaad waa biyo soo maaha waxaasoo biyo adiga uma baahnid galaas biyo ood meel ka darsato meel washaaqo ah ayaa kaaga filan oo aad kuna oonbaxdo kuna weysaysato jirkaada ku nadiifiso huggaada iyo maradaadana aad ku dhaqato yaa kugu filan wa canilbaxri badbadii xaggeedana ijtizaa'un kaaftoon baa ah bilwashali washaaqadii ama laaskii aad ku kaaftoonto arrinka waa arrin cad oo qofka caqliga leh uu ku caqli qaato hadday ku qancin weydo aayaddii qur-aankayd qabso ictabir ku cibro qaado oo ha ku deeqdo naxnu qasamnaa aayaddii qur-aankayd fii suurati zuqruf naxnu annaga eebaa ayaa qasamnaa qaybinay baynahum arsaaqda annagaa u qaybinay mid taajir baan ka dhignay midna faqiir mid caruur baan siinay midna waan ka qadinay mid waan casaan baan ka dhignay midna madow mid madax midna maaratay mar'uus madax loo yahay midba waxbaan ka dhignay annaga arsaaqdaa qaybinay xigmad aniga aan ogahay unbaana saa oga dhigaye qaybtayda ha lagu qanco uu ilaahayna leeyahay naxnu qasamnaa annagaa u qaybinay baynahum talqahu waxaad la kulmay xaqan inay arrintaa runta wa bilxaqi xaqii buuna nazal qur-aanku ku soo degay qur-aanku ma wax kaluuba ka hadlaa qanaacada iyo qiimaha ay leedahay raaxatulbaal cizi oo dhan iyo sharaf oo dhan fi sacaadati iyo raaxatilbaal bay ku jirta inaad faraxsan tahay liibaanna aad ku nooshahay liibaantuna maxay iman wax aad haysato markuu ilaahay ku tuso qofka qanaacada iyo iimaansamida oo saaxiibka noloshiisuu raalli ku yahay kuna qanacsan yahay kan iimaan kalena isagoo tanaad u cadhaysan yahay bal maxaa ka maqan marka waa sidaas talqahu xaqan wa bilxaqi nazal laysa ma ahaanin maa yaxwi lfataa dheh laysa ma ahaanin maa yaxwi lfataa igaarku waxa uu koobay min casmigiisa iyo dadaalkiisa ma ahaanin laa arrinku sidaa ma ahe walaa maa faata wixii tegay yowman maalin kaaga tegay bilkasalina kaagama tegin halkanna mas'ale muhiim uhuu ka hadlayaahoo iyada oo dadaalka iyo kallahaadda la isfaray ayaa haddana waxaa la doonayaa adoo dadaalaya ina dadaalkii haddana ay arsaaqda rabbi un ay ku xidhantahay inkastoo dadaalka lafsadiisaba uu risqi ilaahay uu kugu irsaaqay uu yahay haddanana aakhirka iyo natiijada inaad iimaansataa la rabaa macnaheedii waa maxay hadda matalan ninbaa halkan jiif laba ninbaa daris ah labadoodiiba way jiifaan roobkiibaa da'ay beeralaydaa garanaysay aroortiibaa waxaa la yidhi war beerihii ha la tabcado miigihiibaa la boobay abuurkiibaa la qaatay beerihiibaa miigihii lagu bilaabay ninbaa iska seexday
ninka isaga hadda waa nin seexday baa siciisu dibi dhalaaba ku dhacaysa oo ma dadaalin laakiin laba nin oo kala lahday oo beertii wada abuuratay wada falatay ayaa laga yaabaa inay midna beertii u mataanayso oo sabuulkooda weyninkooda aad mid walba aad moodayso rati kuriskii aad moodayso karoorkoodana intuu leegahay aad yaabayso midna intay beertii diir ka gasho oo roob maaragtay shimbiruhu ay ka cunaan oo xooluhu ay ka baljiidhaan ayuusan xitaa xaquuq uusan helayn wax kale warkeeda iska daaya labadan nin kana wuu dadaalay laakiin haddana kana risqigiisiiba intaa noqday kana risqigiisiiba intaa noqday markaana ha niyad jabin oo ha dhihin cakuya anugu tollaay waaban ka lahay oo waan dadaalaye muxuu kana waxaan u helay isku mar baad guursateen saaxiibka isna wuxuu ka sii daayay wiilal iyo gabdho adigana waxba maadan helin dadaal kuuma yaree ha isliidin risqiga ilaahay baa sidaa ku qanac macnuhu waa saas laysa ma ahaanin ما يحوي الفتى إيجاركو وحا كوب من عزمه ددال كيسا ما أهانين ددال كلية أرنتو ما أها هدنا علف يرزق بميشا كوتر يقدر لا أرنكو سيدا ما أها ولا ما فات يوما وحي مالين كاتجينا بالكسل وهسي كاغمتجين أرنت اللبضة لنعبا كفيري مقعات شرية معنه هو سيداس لبضة دنبا كأك وايهي بيت كصدن يلي وحو يري اطرح الدنيا دا طور هو أبييلين يسن كوريرين تمو يسن كابوبين maxaa yeelay fa min caadatiha caadada adduunyada caadadeeda waxaa ka mid ah takhfidu alcaali kan sharafta leh hoos u dhigay waa tuclii man safal kan hooseeya ee caranka ah ee jaahilka ahna kor bay u qaadi tusaalayaashu aad bay u badan yihiin dee hadda waqti maaragtay fasir uma baahna isha ku macallin ah imisa qof aan waxba qori karin oo jaahil ah maanta xoolo iyo adduun iyo baabuur iyo tareemo iyo dekado iyo maamulaysa imisa caalim xabsiyada ka buuxda imisa mufakkiriin hadal ay yiraahdeen loo jiir dilay imisa ma aratay nin akhyaar ahaayo qiimo lahaa maanta god uu ku jira adduunyada iyo xaalkeeda sidaas waxa weeye dantaada ka raaco ha u bixin bay Soomaalidu tiraahdaa itrax adduunyada tuur hadda ha shaqaysan lagama wado waxa weeye maankaada iyo maskaxdaada iyo fikirkaada ka saar aakhara u fakar famin caadati adduunyada caadada waxa kamid ah takhfidu alcaali ki sharafta lahaa bay hoos u dhigay wa tucli man safal mid doqonana kor bay u qaadi tusaalayaasha idinku ku darsada marka aishatu zaahidi adduunyada ki ka zaahiday ee ka fogaaday noloshiisu fi tahsiiliha adduunya loo shaqaystana ka fogaaday ama ka zaahiday dantiisa ka raacday weeye ciishatul jaahidi kii ku dadaalay noloshiisu weeye wanaga hadda soo sheegaynayo waxa weeye mulku kisra anhu tughni kisratun sooma ahayn kan adduunyada ka zaahiday ee dantiisa ka raacday een isku dhibinba kan ku dadaalay ku fara murxaya shanta qaaradood ama lixda qaaradood u jiiray kan noloshiisa iyo kan noloshiisa waa isku mid bal iska daaye hada adal kan dambe ee jaahidka ah hada kan jaahidka ah ayaa adallu ka dulli badan oo ka daran oo xoolo ilaalintood iyo canshuur soo bixi iyo kan yeel iyo waxaas iyo kadeed iyo fakar buuba dheer yahay mar hadday sidaa tahay adduunyada marka dantaada ka raaco oo ilaahay ba arsaaqdan qaybiyey ee adigu dantaada ka raaco haadka samada duuliyo diinkuba usiman calaf sooma ahayn haadka samada duulaya iyo diinka gurguuranayaba waxa weeye calaf waa u siman yihiin aishatu zaahidi midkii adduunyada ku zaahiday laqbaha aan saarno fi tahsiiliha adduunyada soo xasilinteeda iyo keensashadeeda iyo shaqaysigeeda aishatul jaahidi kii dadaalay noloshiisa weeye bal hada adal kaasa ka dullinimo badan oo ka daran kam jahuulin mid jaahila badana waliba siiqatul mubaalaqa waxa weeye mid jahli badana dheh wa huwa wal hal huwa isaguba muthrin oo tanaad yahay taajir mukthirin oo haddana waliba xoolo badan wa hakimin mid xikmad badan oo abwaana badana kaasoo maata dhintay minha adduunyada xaggeeda bil cilali jirooyin u dhintay nin aqoon-yahan ah
oo cilmigiisii aqoontiisa aad la yaabayso xakiim ah oo jiro iyo silac u dhintay badana mid jaahil ah oo tanaad ah oo xoolo badan oo xoolihiisu aysan is ogeynna badana waa adduunyadii xaalkeed kam jahuulin wahuwa isagaba muthrin walxaal huwa isagu muthrin uu yahay mid tanaad ah muktirin oo xoolo badan wa xakiimin mid xikmad badan badana wa kam xakiimin weeye kaasoo maatan dhintay minha adduunyada xaggeeda bilcilali cillado iyo jirooyin u dhintay mar bay adduunyadu hadashay baa la yidhi oo waxay tidhi banuljahli abnaa'ii lidaaka rafactuhum wa ahlu tuqa abnaa'u darati lukhraa dadka jaahiliinta waa wiilashaydii bay tiri saa daraaddeed baan kor u qaaday haddaan adduunye ahay dadka cabsida iyo akhlaaqda wanaagsan ku tilmaamanna waa abnaa'u darati adarra waxaa la yidhahdaa gabadha lala qabo gaajaha u dhinteen hadday rabaan danka melihi hoos marka iyaga kor uma qaadine hoos baan u dhigay maxay odhan jireen wadaadadeennii horena waxay odhan jireen radiinaa qismata aljabbaari fiina lanaa cilmun walilacdaa'i maalun ilaahay qismadiisiiyo qaybtiisaan ku raali noqonnayo annagu cilmi baan leenahay cadowga iyagana oo gaalada laga wadana waxay leeyihiin xoolo ayay leeyihiin idka 39aad ya kam shujaacin geesi badanaa lam yanal aan gaadhin fiiha adduunyada almunaa gaayadiisii iyo yoolkiisii aan gaadhin wajabaanin fulay badanaa kaasoo naala gaadhay gaayaati alamal yididiilada midda weliba ugu dambaysa gaadhay badanaa geesi aan dantiisii gaadhinna badanaa fulay goolkiisii dhaliyeyna adduunyo ku badanaa waa adduunyo iyo xaaladeed way waa harka labadiisa gelin wey kam shujaacin geesi badanaa kaasoo lam yalan aan gaadhin fiiha almunaa adduunyada aan wuxuu uu ku taamayay aan ka gaadhin wajabaanin fulay badanaa kaasoo naala gaadhay gaayaati alamal yididiilooyinka alma'muul weeye gaayadeediiyo yoolkeedii gaadhay badana beydka 40aad waa kii ugu dambeeye darsigan saddexaade fatruk ilxiilata xeelada ka tag marka hadday sidaa tahay fiiha adduunyada dhexdeed aad xeeladaysato oo inaad wax khiyaanti iyo taxayul inaad samaysi iyo ribo inaad wax ku kasbato iyo waxaas adduunyada isaga tag watta'id dhimri oo ismiirso kaadsiye yeelo watta'id dhimri inama alxiilatu xiilada fii tarki alxiyal waa xeelada oo laga tago waa meeshay dadka qaar ka yidhaahdaan siyaasadda maanta soomaalida asiyaasatu tarku siyaasadda saxda ah iyo siyaasinimada maanta waa siyaasadoo laga tago maxaa yeelay waxa aad taqaana iyo waxa aad ku baaqaysi iyo cidnaba u fiirsan maysay reer hebel ma tahay baa lagu dhihi marka maxayba tari siyaasadda noocaas oo kale ah siyaasad waxaa weeye ajnabi uu maamulayo ilaahay waddankeena sidaa ha ka saaree siyaasaddaasi maanta mid la gala ma aha hana loo duceeye waxba haddayaan dayraha waxba tari mayse ha loo duceeyo dalkii ilaahay subxaanahu wa tacaala siyaasad wanaag iyo maamul wanaag iyo inaan danteenna garanno dembigeennana u dhaafaan ilaahay weydiisanaynaa haadaa wallahu aclam وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين